Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow Success Academy. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe inoo saar, sheertii laagtana ha naga ilaawin. Ma sheer garee asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan. Maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay MS Word-ka. Qaadanayna cashirka la yiraahdo watermark. Watermark maxaa la yiraahdaa? Watermark waxaa la yiraahdaa markaad qoraal aad qorato, qoraalkaas aad doonaysid inaad daabacato ama meel inaad dhigto warqadaha, kadibna aad diidan tahay in qoraalkaadii la qaato oo edit lagu samaysto ay dad kale isticmaalaan. Sidee marka sidaa uga hortagi karaa aniga inaysan dhicin ama inay dhacdo? Waxaan samaysanayaa marka ugu horeysa waxaan soo kacsanayaa Word-kayga ayaan soo kacsanayaa. Kadibna waxaan ku dhufanayaa time-kii ayaan dooranayaa. Click ayaan ku siinayaa. Click markaan ku siiyo waxaa ii soo baxaya warqad cusub aan waxba ku qornay. Waxaan soo gashanayaa marka qoraal iska normal ah ama iska caadi ah is equal bind ayaan leeyahay. Kadib waxaan leeyahay marka 20 paragraph soo geli. Marka qoraalkan ayaan qortay soo qaad list qoraalkan ayaan diyaarsaday. Qoraalkan uu ii diyaarsan yahay wuxuu ka kooban yahay ilaa 2 page. Hadda qoraalkii haddii aan rabo inaan daabacdo Ctrl+P aan dhaho, waxaa aragtaa qoraalka wax magaca kuma qorno oo easy iska fududahay in la qaato. Sideen ugu hortagaa marka in la qaato? Waxaad ugu hortagi kartaa in qoraalkaada lagaa koobiyeysan ama lagaa qaadanin. Waxaad ku dhufanaysaa design oo haddii aad isticmaalayso Office 2021 aad isticmaalayso. Haddii Office 10 aad isticmaalayso waxaad ku dhufanaysaa page layout ayaad ku dooranaysaa. Halkaas markaa imaado meeshaan waxaa aragtaa watermark. Watermark ku dhufo. Watermark click markaan ku siiyo waxaa kasii dooranaysaa custom watermark. Custom watermark markaan ka doorato text ka dooro. Kadib meeshaan asal ay ku qoran tahay waxaad ku qoraysaa marka Success Academy. Farta daarabta halkaan aad ka bedeli karaysaa halkaan ku dhufanaya. Auto size ka cabirka daarabta meesha si wax ka dhigi kartaa tiq madow ku ahaado mid qaato. Kadibna apply ayaad leedahay. Apply markaad dhahdo maxaa aragtaa halkaan hoose Ctrl+B ayaan leeyahay. Hadda waxaa aragtaa Success Academy. Sidaas waa sida loo samaysto ama warqadaada inay ka muuqato aad u baahan tahay magacaada ama institution-ka magacaada aad ka shaqeyso ama warqadaada. Fadlan haddii aad ka cusub tahay subscribe inoo saar una sheer garee asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.